Jimco kasta waxaad halkan ka heli kartaan maqaal ku saabsan kheyraadka dabiiciga ah, gaar ahaan shidaalka iyo gaasta. Soo dhawaada saaxiibayaal. Taariikhda saliidda Ruushka. Waxaa hore loo ogaa in gobolka Baku uu qani ku ahaa saliidda. Dadka socotada ah ayaa la kulmay dabka joogtada ah ee ay shidayeen ilaha dabiiciga ah ee batroolku. Waxaa jiray ganacsi aad u wanaagsan. Nafta waa erey Ruushku u yaqaan batroolka. Inta u dhaxaysa xeebaha Caspian iyo bariga fog waxaa lagu rari jiray naaftada awr sida qarbadyo hargo adhi ka samaysan. Helitaanka saliidda Maraykanka ayaa dib u soo nooleeyay xiisaha kheyraadka Baku, taasoo horseeday qodis ka bilaabatay halkaas 1872. Wax soo saarka saliidda ayaa si xawli ah u kordhay, isagoo gaadhay 1 mitrik tan 1899, 1889, 4 mitrik tan 1890, iyo 10 mitrik tan 1900. Waqtigaas waxay ahayd kala badh wax soo saarka adduunka, waxayna dhaaftay wax soo saarka Maraykanka. Kuwii ugu horreeyay ee iibsaday dhul ku yaal gobolka Caspian waxaa ka mid ahaa Robert iyo Ludwig Nobel, oo walaalo ah, ilma Alfred ahaa. Alfred waa ninkii hindisay nitroglycerin iyo dynamite ee abaalmarinta magaciisa sita. Labadaa walaalaha ahi waxay si degdeg ah u horumariyeen goobihii saliidda sifaynta iyo gaadiidka. Waxay diyaariyeen gaadiid badan oo saliid wada kana gudbaya badda Caspian, iyagoo bilaabay markabkii ugu horreeyay ee saliidda qaada oo la odhan jiray Sorostra 1878, waxayna noqdeen kuwa ugu badan ee soo saara saliidda gobolka. Dabcan, dhibaato si degdeg ah u soo baxday waxay ahayd sidii saliidda looga soo qaadi lahaa Azerbaijan loogu sii gudbin lahaa Georgia ilaa Badda Madow. Go'doominka kheyraadka saliidda ee Caspian oo horeyba dhibaato u ahayd dhammaadkii qarnigii 9aad ayaa weli ah ilaa maantadan la joogo mid jirta. Sanadkii 1893 ayaa la soo jeediyey waddo tareen oo isku xidha Baku iyo Batham oo ku taal Badda Madow, waxaana la soo geliyey maalgeliyihii Faransiiska ahaa Alphonse de Rothschild. Tan dambe waxay horeba u ahayd dano ku saabsan warshadaha saliidda, soo dejinta karosiinta Maraykanka iyo sifaynta warshadaha badda Atlantic. Wuxuu oggolaaday inuu ka qayb qaato maalgelinta dhuumaha, wuxuuna sii waday inuu sameeyo shirkad magaceedu ahaa Bonito, taas oo noqotay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn gobolka. Noobaladii iyo Rothschilds waxay si degdeg ah u doonayeen inay alaabadooda ka iibiyaan suuqyada dibadda, Yurub iyo Bariga Aasiya, iyadoo walaalaha Nobel ay gacanta ku hayeen inta badan suuqa Ruushka. Shirkadda Rothschild waxay aad ugu tiirsanayd suuqyada shisheeye. Ha yeeshee, Marcus Samuel, oo ah ganacsade reer London ah oo ku takhasusay soo dejinta iyo dhoofinta, gaar ahaan soo dejinta alaabooyinka qadiimiga ah iyo qolofka badda ee bariga fog, marka loo eego gaadiidka badeecadiisa, ayaa isna daneeyay suuqan bilowga ah. Sannado badan waxaa jiray tartan adag oo u dhexeeyay Standard Oil iyo soo saarayaasha Caspian-ka, laakiin waxaa jiray hoos u dhac degdeg ah oo ku yimid xaaladaha dhaqaale iyo bulsho ee Ruushka. Maamulkii Tsaarista oo muujiyay daciifnimo maamul, kacaankii 1905 ayaa fashilmay, laakiin 1917 waxaa xukunka qabsaday Bolsheviks oo afgembiyey boqorkii. Muddadaas oo dhan, gobolka Baku waxaa gilgilay shaqo joojin isdaba joog ah iyo qalalaasaha warshadaha oo ay sababeen duruufaha shaqo ee liitay. Mid ka mid ah hogaamiyayaasha falalkan ka dambeeyay ayaa ahaa Joseph Duguishvili, oo ku caana Stalin. Xaaladdan markii laga lug bixi waayey,
Rothschilds wuxuu go'aansaday 1912 inay ka iibiyaan inta badan danahooda shidaal Royal Dutch Shell oo la aasaasay 1907. 1918 taliskii cusbaa ee Soviet wuxuu qarameeyey dhammaan warshadaha saliidda. Royal Dutch Shell ayaa 50% sahaydii saliidda ku lumisay shaqo joojin, kadibna Nobelkii wuxuu iska qaaday dhammaan hantidiisii, taasoo Standard Oil of New Jersey iibsatay saamigiisii. Waayo Standard Oil of New Jersey waxay ku qanacday in ay maalin uun awood u yeelan doonto inay dib u bilaabi doonto shaqada dhulka Ruushka. Nasiib darro se rajadaas waa la waayay sababtoo ah inkasta oo la qaaday siyaasad dhaqaale oo cusub oo xor ah sanadkii 1920-yadii, shirkadihii la qarameeyey midkoodna kuma guulaysan inuu dib u bilaabo howlo muhiim ah. Dhanka kale, Standard Oil New York ayaa markii dambe qandaraas ku iibsatay alaabada Ruushka. Sanadkii 1920kii wax soo saarka saliidda Ruushku wuxuu hoos ugu dhacay 3 mitrik tan sanadkii marka la barbar dhigo 10 mitrik tan sanadkii bilowga qarniga. Sanadkii 1930kii ayayse dib u soo ceshatay heerkii ay ku raaxaysan jirtay ka hor intii uusan dillaacin dagaalkii 1914 ilaa 1918, waayo dowladdu waxay aad ugu baahnayd lacag qalaad oo ay ka hesho dhoofinta saliidda. Dhoofintaasi way ka faa'iidaysteen qiimo dhimis yar oo loo sameeyey marka loo eego qiimaha caalamiga ah. Nabaday dhegaystayaal, waa inoo iyo Jimcaha dambe.